iyadoo weli socdo dagaalka bariga dhexe oo guud ahaanba saameyn ku yeeshay dunida. waxaynu warbixinteena ku dil istaagi doonaa khasaaraha hantiyeed ee dagaalka u dhaxeeya labada garab ee Israa'iil iyo Mareykanka iyo Iran oo dhinaca dagaalkaasi oo saameyn ku yeeshay dunida. dagaalkani u dhaxeeya Israa'iil, Iran, Mareykanka ayaa sababay khasaare dhaqaale iyadoo qiimaha ugu dambeeyay uu muujinayo in khasaaraha military iyo burburka dhaqaale uu si degdeg ah u kordhayo. warbixino ay bixiyeen saraakiil sarsare oo ka tirsan Pentagon-ka Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku uu bixiyay in ka badan 11 bilyan oo dollar lixdii maalmood ee ugu horeeyay ee dagaalka. lacagtan ayaa inta ku badan lagu kharash gareeyay gantaalo casri ah, difaaca gantaalada iyo howlgallada diyaaradaha dagaalka. wararka ayaa tilmaamaya in labadii maalmood ee ugu horeeyay oo kaliya lagu isticmaalay qiyaastii 5.6 bilyan oo dollarka Mareykanka ah hubka iyo gantaalo, taasi oo muujinaysa sida uu dagaalku u noqday ku kacaya qiimo qaali ah. dhanka Israa'iil, wasaaradda maaliyadda ee dalkaasi ayaa sheegtay in dagaalku uu dhaawac u geysan karo dhaqaalaha ku dhawaad 3 bilyan oo dollar toddobaadkii ugu horeeyay, iyadoo shaqooyin badan la hakiyay, dugsiyana la xidhay, isla markaana ciidamada kaydka la abaabulay. sidoo kale weerarada gantaalada iyo duqeymaha ayaa sababay burbur ku dhacay guryo, saldhigyo ciidan iyo kaabayaal muhiim ah, taasoo kordhisay kharashaadka iyo dib u dhiska difaaca Israa'iil. dhinaca kale, dagaalkan ayaa sidoo kale saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha caalamka, iyadoona qiimaha shidaalka sida degdeg ah u kacay kadib markii khatar la geliyay marinka muhiimka ah ee Hormuz oo ay maamusho Iran. ku dhawaad 20% shidaalka dunida uu maro. marka la isku daro kharashaadka militariga iyo burburka kaabayaasha iyo saameynta dhaqaale ee dagaalka Israa'iil, Mareykanka iyo Iran ayaa hore u sababay khasaare gaadhaya 10 bilyan oo dollar, iyadoo khubaradu ay ka digayaan khasaarahaasi inuu sii kordhi karo marba marka ka dambeysa.